shirka mucaaradka ee ka socda guriga hoyga madaxweynihii toddobaad ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ay maanta ka soo muuqdeen qaar ka mid ah culimada dawladda federaalka ma waxa laba garab u kala jabay culimada dawladda oo qaar miyaa la saftay mucaaradka kulamada iyo shirarka mucaaradka oo wajiyo cusub yeeshay maxaa dhab ahaan socda waxa weli magaalada caasimadda Muqdisho si gaar ah guriga hoyga madaxweynihii toddobaad ee Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed si xawli ah uga socda shirka mucaaradka dawladda federaalka shirkan ayaa isbuucan noqday mid ka duwan kuwii hore isagoo yeeshay waji ka duwan kuwii hore kadib markii uu noqday mid si toos ah looga qayb geliyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxa shirka mucaaradka ee ka socda hoyga madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed markan ku soo biiray odayaasha dhaqanka iyo culimada kuwaas oo ay mucaaradka dawladda federaalka u arkaan mid muhiim ah si ay u muujiyaan in aragtiyahooda siyaasadeed yihiin kuwa leh oo haysta taageero balaaran oo bulshada dhexdeeda ah saacadihii aynu ka soo gudubnay kulamo waaweyn ay mucaaradka dawladda federaalka ee ku midaysan magaca golaha mustaqbalka Soomaaliya la yeesheen odayaasha dhaqanka magaalada Muqdisho shirkan ay mucaaradka kula wadaageen odayaasha dhaqanka xiisadda siyaasadeed ee dalka uu ku jiro iyagoo la wadaagay qorshahooda iyo aragtiyahooda ay kaga soo horjeedaan madaxweyne Xasan Sheekh iyo in ficilada uu qaadayo uu ku wajahayo siyaasadda gudaha Soomaaliya si gaar ah arrimaha doorashooyinka ay yihiin kuwa aan loo marin sifooyin sharci ah iyagoo sheegay in odayaasha dhaqanka Muqdisho ay isla afgarteen in Soomaaliya ay u baahan tahay badbaado sida ay sheegeen xilli ay faahfaahin ka bixinayeen waxa ka soo baxay shirka ay la yeesheen odayaasha dhaqanka Muqdisho saacadihii la soo dhaafay dhanka kale talaadadan 21 Abriil sanadka 2026 shirka mucaaradka ee ka socda hoyga madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa ka soo muuqday Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ka mid ah culimada taageersan dawladda federaalka isla markaana ah gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed muuqaalka iyo ka qaybgalka Sheekh Bashiir Axmed Salaad ee shirka mucaaradka ayaa dhaliyay badan maadaama uu ka mid yahay culimada sida weyn u taageerta dawladda federaalka uu hogaamiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilli muddaxileedka madaxweynaha uu dhamaad ku dhow yahay inkastoo warbaahinta goobta joogtay aysan u suurtagalin inay wax ka weydiiyaan Sheekh Bashiir imaanshihiisa oo ka wareysana haddana dhinaca kale waxaa jira horar iskhilaafsan oo ku saabsan sababta ka dambeysa ka qaybgalka iyo imaanshihiisa taasoo loo sababeeyey oo loo marayn karo inay la xiriiri karto dadaalada mucaaradka ee ku aadan balaarinta shirarkooda ee ka qaybgelintooda qaybaha kala duwan ee bulshada maadaama marxalad ismariwaaga iyo khilaafka siyaasadeed ee xilligan Soomaaliya wajahayso uu meel sare marayo haddana waxaa jira soo jeedimo qaar oo khubarada siyaasadda qaarkood xal u arkaan kuwaasoo ay ka mid yihiin in la helo heshiis doorasho hanaan doorasho oo lagu wada qanacsan yahay madaxweynahana u qabto kulan degdeg ah oo ka duwan kuwii hore ka hor intuusan dhammaan muddaxileedkiisa bisha waxa ka yar ka dhiman ama in uu la yimaado tanaasul siyaasadeed sida ay qabaan quurada siyaasadda qaarkood isku soo wada duubo Soomaaliya ayaa xilligan wajahaysa iska hor yimaado khilaafyo siyaasadeed oo jihooyin kala duwan leh arrimaha ugu waaweyn ee muranka taagan yahay doorashooyinka si kasta ee haataba waxaana la ogeyn halka uu ku dambeyn doono khilaafkan siyaasadeed ee sii xoogeysanaya ee u dhexeeya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo muddadiisa xilhaynta dhamaadka ku dhow iyo mucaaradka shirarkiisa daba joogga ka wada magaalada caasimadda Muqdisho